السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أحبابي أخواتي في الله، بارك الله فيكم. هذه المركز سبكئة بشرة جبنا أي تهي صدن كن أفربق المركز أفرطن يشن وحميس كان وصارا إن عندما يسترنا دعاء حلقة بيضا نجا هاي عن مركز كتبني دعاء إذن هاي ودعاء يورينيسو أم سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أم سلمة رضي الله عنها وحي هاي نبي ورقي قرقي كموبح إلا هدو قرقي كبحي وحي سمين جري أريمهن indhihiisa intuu kor u taago ayuu ducadan akhriyi jiray. ilaan rafaca tarafahu ila samaa indhaha intuu kor u taago nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu markaa nabiga sallallahu alayhi ducadan ku ducaysan jiray. ilaahay buu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam taladiisa u dhiiban jiray. gurigiisu ka baxaya badbaado rabaa iyo ka dalbanaya Allah subhanahu wa ta'ala. adigana hadii aad gurigaaga ka baxayso cid markaasi adiga markaa ka baahi badan ma jirto. nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi ah ogaana inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala garabkiisa taagay ayuu waliba ilaahay talada u dhiibay jiray. adigana rabbiga talada u dhiibo u ducayso ducadan gurigaaga markaa ka baxayso. ducadii xalay aan markaa dhameeyay barakallahu fiikumna oo idin soo gudbiyayna waa ku ducaysan kartaan. ducadan waa ku ducaysan kartaan. nabiga sallallahu alayhi wuxuu yiri: allahumma allah inni aniga a'uudu bika waxaan ilaahay magan kaaga noqonaya oo ilaahay badbaado kaaga dalbanaya arimahan soo socda. an adilla inan lumo oo baadiyoobo أو أضل إن لا يلوميه أما لا يباديه أو أزل أما إن هو ذي ذا راعي الذنب كدعه أو أزل أما هو ذي ذا إن الراعين عد سبب إنه قطعك ذنبك أي أجرده أو أظلم إلهي إن أنك أو ظلميه وأن ذنبك ذنوب تمركا ووين مركا إلهي وأديك أديدي مثل إذا إن كدعه أو يظلم أما إنك إن لا يظلميه ظلم لا يسميه أو أجهل أما إلهي أنيق إن جاهل نقضون قف كجاهل فعل أن حق أهين أما أن أقون دراءه أما أن وحكأ بين إن نعد كلاكعه أو يجهل عليه أما أنيق إن ليقو جاهل نقضو إلهي مركا ليقو حد قدبو ووحنا رالك أهين أذيقنا رالك أهين إلهي إن ليقو سميه. مركا إخواني بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء. جعل سوى أجدان إنه النبي ربكي أتفصارتي الله صار شمركا دبه وحو النبي إلهي ويديستي إنه حق كسكناضو وحو يري إلهي وحن كامل قليا إنه ضدي سحدا هاي حقا هاي دين هذا لا يقبادي أما عيد مركا إن أنيق باديو دين هذه حقا يكلحه أما عيد مركا أنيق إن إبادي يسو أما إلهي وأنيق مركا إن هو راع نقضو ذنبي كنت ترون كله أما عيد مركا إن هو ذي راعي سوء sabab u noqoto dambi igu rido ama ilaahay waxaan ka magan galaya buu nabiga yiri in marka aniga la dulmiyo ama ilaahay waxaan ka magan inaan aniga wax dulmiyo ama in la dulmiyo ilaahay labadaba ilaahay waa ka magan galaya buu nabiga yiri ama ilaahay waxaan ka magan galaya in aniga marka aan jaahil noqdo oo ficil marka jaahilnimo oo aan diinta marka waafaqsanayn inaan cid kula kaco ama aniga laftirkayga in la igu la kaco ficil marka xaq ahayn oo marka diinta aan marka banaynin. marka barakallahu fiikum ilaahay waa u wada baahannahay nabiga ilaahay sida u tala saartay adiga maxad u malaynaysaa maanta baadi ma rabtid ina baadiyo ma rabtid ilaahay weydiiso maanta ma rabtid gurigaaga dad baa waxa la sheegaa gurigooda markay ka soo baxaan inay baadiyoobaan way dhacdaa dad baa laga yaabaa in dambi markay ku dhacaan ee dambiga ku tarax tagaan marka dad xun ay noqdaan. lidaa ikhwaani barakallahu fiikum haddii aad u baahan tahay inuu rabbigaa ku ilaaliyo ku xifdiyo oo jidkii xaqa ah kugu tuso ilaahay uu kugu sugnaysiiyo ilaahay kugu marka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu sugo ducada ku ducayso waxaad tiraa ilaahayow aniga waxaan ka rabaa inaan marka jidkii xaqa ku sugnaado inaanay cidna ibaadiyaynin inaan marka ilaahayow aniga aan dambi ku turoonin ilaahayow inaan hawa raac noqonin oo anigana yaa hawadayda marka inaan raaco aanay cidna sabab u yeelanin in marka ilaahayow aniga la dulminin ama inaan ilaahayow cid aan dulminin aniga ama ilaahayow inaan jaahil noqonin ama in la igu jaahil noqonin. barakallahu fiikum ducada waa duco qiimo badan waxaan idin ka codsanayaa inaad sheer garaysaan oo baahisaan caruurtiina bartaan asxaabtiina bartaan qoyska iyo cid kastoo wanaag aad la jeceshiina inaad ku gudbisaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.